السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت موضوعا وحو كسابسن يهي مارينتا iyo fahanka hantida amba lacagta. Dadkeenu inta badan su'aalahan isweydiiyaan sida taajir lagu noqdaa, waqti kooban hanti ma ku samayn karaa, dadaal iyo aqoon hanti ma samaysaa, maareynta lacagtu ma mid u baahan aqoonba. yacni su'aalahan waa su'aalo inta badan si dabiiciya oo nolosheena maalinlaha ah ku soo noqnoqda. bal marka waxaan doonaynaa fahan asaasi ah oo qofka aynu ka siino mafhuumka lacagta iyo hantida. marka waxaan doonaynaa su'aashan caanka ah ee ma jeceshahay lacagta bal inaynu isweydiino. qofku marka su'aasha markuu isweydiiyo laba ciladood baa dadka haysta. cilada koobaad waa cilada la yiraahdo cabsida amba baqashada. qofku lacagta wuu jecel yahay laakiin wuxuu ka baqanayaa inuu shaqadiisan waayo. hadduu activity israada sameeyo yacni lacagta iyo si lacagta aad u samayso iyo qof dhiiran maaha qofkani. mashaakilka haysta waxa weeye cabsi ama baqasho. wuxuu kaloo ka warwarayaa deganaanshiyo la'aan dhinaca dhaqaalaha ah. wuxuu qoranayaa maanta haddaan shaqadan ka tago oo aan business sameeyo bilow inaad yaro socon bilu kala kaca yani yabaal baa dhinaca ka haysta. ta saddexaadna waxa weeye khatarta kuma dhiirana oo nin yani risk taker oo riskiga yani u fudud yahay inuu qaato maaha. marka horti cilad wataas waa fear amba waa cabsi. cilada kale waxa weeye dadka lacagta jecel haysta waxa weeye damac. waa qof yani lacagtii haya laakiin damac baa haya oo ka hadiya jeer waxa haysta waa qaybta dhinacan oo waxa haysta yani maamul xumadi waxa ku sababay lacagtan uu jecel yahay sida saayidka uu jecel yahay weeye. kadibna waxa laga yaabaa in ka jacaylka lacagta uu qaba in ka indhatirto inuu lacagtiisa horumariyo. marka cilada koobaad iyo taa labaad ba hadii jeer dadka ka haysta inay lacag iyo hanti sameeyaan. arrimaha hadaba aynu doonayno inaynu bal yani si basic u fahanno ee ku saabsan sidee loo sameeyaa hanti waqti kooban amba sidee hanti loo sameystaa amba ay tahay qofka yani aan xataa aqoonta badan u lahayn inuu ka fahmo yani hantida iyo lacagta iyo maareynteeda. waxa la yiraahdo waxa weeye passive income amba dakhliga dadban waa maxay? yani passive income amba dakhliga dadban waxa weeye sida caadiga ay naqaana qofku waxa weeye inuu shaqeeyo kadibna lacag la siiyo. marka sida macruufka waxa weeye yani time-ku wuxuu leeyahay lacag amba waqtiga shaqada geliso waxaad ku helaysaa lacag. qofka wata mushahar la siiyo shaqeynaya laakiin mafhuumkan doonayna inaynu fahanno kaas oo wada macruuf oo yani qofka hadduu shaqeeyo lacag baa la siiya waa macruuf. laakiin arrinta doonayna isla fahanno ay tahay inaad passive dakhliga dadban waxa weeye inay lacagtii adiga ku shaqeyso oo adigu aan meeshii joogin oo shaqaale ahayn lacagtaadii kaligeed ay ku shaqeysay lacag kale ku dhasho. marka horti fikirka koobaad doonayna maskaxdaada aad ku raasaysaa ama aad fahantaa waxa weeye inaad isku daydo inaad yeelato dakhliga dadban. yani yaanay muhiimadaadu amba aragtidaadu amba yani hamigaagu yaanu ku koobnaanun shaqaale iyo lacag waqti iyo lacag laakiin inaad ku hamido amba aad samayso waxa la yiraahdo yani dakhliga dadban amba passive income taasoo ay tahay lacagtaadu inay ku shaqeyso adigoo maqan. marka qodobkaas ka ilaalinayso kana waa kan doonayna fahantaan ee dakhliga dadban. hadaba dakhliga dadban sidoo yani qofka uu horumariyo amba hanti ugu sameeyaa baan eegina. haddaba dakhliga dadban wuxuu aasaasa 4 qodob. dadku sida caadiga ay naqaana waxa weeye waxa yaqaanaan income-ka amba sheeg waxa weeye kharashaadkaaga. waxaan jeedaa income-ka oo mushaharkii amba dakhligii ku soo galay iyo kharashaadka ku bixiso. waxa weeye labada mabda'a caadiga ah isla naqaano inta badan markay lacagta ka sheekeynayaan amba yani sheeg hantida ay ka sheekeynayaan amba qofku mushaharkiisa soo qaato waxa koobaad ku fikira waxa weeye kharashaadkii uu ku bixin lahaa. waxa weeye kiradii iyo biilkii iyo transportationkii amba wixii isgaarsiintii iyo cashuurihii dhammaan arrimahani waa arrimuhu ku bixiyo dakhliga soo gala. dakhligaas laba dhinac buu ku soo gali karaa waa lacagta mushaharka ku qaatay amba waxa weeye shakira amba si kale ku soo galay. laakiin labada arrimoodna doonayna inaynu fahanno maaha taa caadiga taqaanaan waa labada arrimood xagga sare ku qoran mid yahay hanti midna uu yahay dalabaad. hantidu lacagta ku soo gasho waxaad gelisaa hanti say lacag kuugu samayso. tusaale ahaan oo kale mashaariic lacagta geli haye waxaad gelisaa kale dhismaka ay ka soo gasho kiro sax waxaad gelisaa saami amba shirkado oo yani waxaad stocks geli. taasi waxay ku sahlaysaa inaad waqti fudud hanti ku yeelato lacagtaada lacag bay ku dhalaysaa. laakiin waxaad iska ilaalinaysaa oo khatar ku ah oo lacagtaada bixinaya waxa weeye waa liabilities ama waa dalabaadka. iibsashada guryaha oo guriga inaad iska iibsato, baabuur inaad iska iibsato, sanad walba inaad mobilkaaga bedesho, inaad dalxiis iska tagto. lacagtaada mushaharkaaga amba hantida ku soo gasha isku day inaad arrimahan aanad gelin. arrimaha ma gelinaysid waxaad gelinaysaa waa maxay? waa arrimahan oo mashruucaad dhisme ay ka soo gasho saami amba shirkado. lacagtaada halkan gelisay lacagtaada lacag ugu dhasho. marka labada mafhuum aan doonayna fahantaan waxa weeye ha ku koobnaan tan hoose ee maxay? waa dakhli iyo kharash. labadaas ha ku koobnaan ee isku day inaad fikirkaaga u wareejiso qaybtan inaad hantina samayso iskana ilaaliso dalabaadka yani guri dhiso gaari iibso mobil bedel dalxiis in arrimahana dib u dhigto oo arrimahaaga geliso mashaariicda iyo dhismaha kiradu ay ka soo galisay saamiga. qodobka inaad fahanteen baan rajaynaya. qodobka kale aan rabo doonayna fahantaan waxa weeye mind your own business. yani mashruucaaga ku gaarka ha kuugu jiro balaanka ha ku talagali noloshaada
inay ay mihnadaadu taajir ka dhigto salaano kale halkan hadal baa ku qoran hadalkaas wuxuu oranayaa xirfadaadu waxay ka bixisaa biilalka yani xirfadaada iyo mihnadaadu waxay ku koobantahay waa biilalkaaga laakiin mashruuca aad leedahay oo gaar ku ah ayaa ka dhiga hantiile marka horta noloshaada waxaad ka qayb dhigtaa oo ka dhigtaa noloshaada qayb kamida inaad yeelato mashruuc adiga ku gaara ha ku koobnaanun inaad xirfadaada ay ka dhigi doonto mid lacag leh iyo in aad shaqaalun ahaato ogow intaad shaqaynayso noloshaada aad qof shaqaale u tahay hantina ma yeelanaysid taajirna noqon maysid laakiin waxa taajir lagu noqdaa waa mashruuc adiga ku gaar ah